ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee Gorgor ayaa waxa ay howlgalla ka dhana maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ka sameeyeen deegaanada hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. ciidanka ayaa si gaar ah howlgalkan kaga sameeyay halka loo yaqaan Tuulo Xaaji iyo sidoo kale Tuulo Cadaad kuwaas oo dhamaantood hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. wararka ayaa intaasi ku daraya in howlgalkan oo qaatay muddo 3 maalmood ah maleeshiyada kooxda Al-Shabaab laga wareegay deegaano badan oo hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Gorgor ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in howlgalkani ugu dambeeyay ay ka sameeyeen tuulooyinkaasi ay ku dileen maleeshiyad badan oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab kuwaas oo gabaad ka dhiganayay dhulalka hawdka ee ku yaala deegaanadaasi. waxay sidoo kale sheegeen in ay si wadi doonaan howlgalkan ka dhanka maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ilaa inta ay ka saarayaan dhammaan deegaanada kaga sugan yihiin gobolka Mudug. howlgalkan ayaa qayb ka ah dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab kaasoo imika si dardar kaga meelo fara badan oo ka tirsan gobolka Mudug gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ilaa hatan wax war kama soo saarin howlgalladan ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wala wareegeen deegaanada hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug.